بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض وضيال كسر دوادا برنامج كيني حق يحقق أو تضبط كوا كلا سعودان تلفزيون كقرن كإسماعيل الآن ساعدها نوكله برنامج كين تبضن وحنا كويجنا إن وحيابها كلا دوان كوس عبسن إن هيدا لمها الدولة يسودو كلا غيبها كلا دوان بالشدة سياسة ده تاريخ ده يسودو كلا وحيابها وقت جالس هاجم وحن كم مغنين وبرنامج كمرة قارة كو أركتان تاريخه ودن كانوا صومري وإنه غير كود دبوا أبناء haddaba waxaanu maanta barnaamijkeena mowduuciisana aynu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan ciidanka dabdamiska ama wala dagaalanka dabka ee ka howlgala xarunta gobolka saaxil ee Berbera oo qayb ka ah ciidanka dabdamiska guud ee qaranka Soomaaliland oo aanu bil wax ka weydiin doonaa howlaha shaqo ee adag ee ay ka hayaan magaalada Berbera iyo waliba waxyaabihii ugu darnaa ee ay qabteen intii ay ku sugnaayeen magaalada waxaan meesha ka maqnayn inay magaalada Berbera ay tahay magaalo xeebeed ay inta badan ka dhacaan dabaylaha maansuum koonfur bariya maansuum koonfur galbeed waqtiyada xagaaga iyo sidoo kale waqtiyada jiilaalkaba oo ay dabab meelaha qaar ay ka kacaan ciidanku kaalin weyn ay ka qaateen sidii ay dababka qaarkood oo halis ahaa oo qaarkood ay ka kaceen xiriyaha ariga ee Berbera ay magarasa damiyeen hawlo badan oo adag ay magaalada ka qabteen intii ay joogeen guud ahaanna ay shacabka Soomaaliland og yihiin taariikhda ay maanta ay kaga jiraan laba nin oo dhalinyaro ah oo saraakiil ah ayaa maanta barnaamijka inagula sugan bal ugu horeyn waxaan ku soo dhaweyn doonaa labadaba si isku mid ah telefishinka qaranka Soomaaliland iyo barnaamijka xog iyo xaqiiq Jimcaale iyo Cabdiraxmaan oo taliye ku xigeen soo ahna mas'uuliyiinta goobtan maamula way soo dhaweynaa Jimcaale iyo Cabdiraxmaan bismillaah ugu horeyn TV-ga qaranka aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee waxa weeyaan umadiina ugu shaqeynaysan inta ka bacdi waan soo dhaweynaynaa xarunteeda ku soo dhaweynaynaa inta ka bacdi haddaan information ka bixiyo qaabkan u shaqeyno iyo waxa weeyaan ciidanka dabdamiska gobolka saaxil noocyada u shaqeeyaan ciidanku kulli sida ay muxuu wada ogyiin 24 saacadood ayay waxa weeyaan 24 saacadood way heegan oo xirada heegan ku yihiin laba shift way u kala galaan oo 12 saacadood iyo 12 saacadood waxa weeyaan u shaqeeya 12 saacadood marka shifti dhamaysto shiftiga kale waxa uu kala wareegaa shaqada isagoo shiftigii hore ugu jiray uu shaqada ka baxo marka 24 saacadoodba ciidanku xiraday ku sugan yihiin waxaanay heegan ugu yihiin waxayaan in la soo sheego waxay u baxaan ama emergency ah oo qayl dhaanta ay sugayaan lambarka ciidanka dabdamiska ee 990ga sidii loogu soo wargelin lahaa waxa weeyaan halka u baxa halkaas wax laga soo sheegayay intaas un bay iyagu diyaar u yihiin dadku waxay aaminsan yihiin inta badan in waxyaabaha ciidanka dabdamisku ay u gurmadaan ay tahay dab inay tahay laakiin taa way ka duwan tahay oo ciidanka dabdamisku waxay u baxaan hawlgallo nooc ay doonaan bahan noqotee wixii badbaado waxa weeyaan ah ayay u baxaan inta badan hadday noqoto muxuu ahaayay dabab hadday noqoto meel bulaacado kale dad la go'ay hadday noqoto daadadko kale dadka waxa weeyaan laga soo badbaadiyo kulli shaqadooda lama soo koobi karo oo ma aha dab xirfadoodii wax dab waxa weeyaan ku saabsan marka way ka ballaaran tahay intaas marka inta aan ka soo gudbo kulli imka hal sano in muddo ah bay ciidanka dabdamisku ay maxay joogaan gobolka saaxil muddadaana hawlgallo kala duwan oo dhibtooda qaar leeyihiin qaarban nooc ay yihiin waxa weeyaan ayaa loo baxay oo ay ciidanku ka hawlgaleen muddadii hore ciidanka dabdamisku aanay joogin gobolka kulli gobolku waxa weeyaan muu haysanin wax ka caawiya waxa weeyaan baahiyaha ciidanka dabdamisku ay inka qabtaan u baxaan hadday noqoto dabab muxuu ahay guryo gubanaya hadday noqoto meelo baabuur meelo galayo waxa weeyaan laga soo saaray imka inta muddada ugu badan imka marka laga yimaado dooxyadu way ku yar yihiin inta badan Berbera laakiin waxyaabaha ugu badan badda oo kale xeeligeeda ayaad arkaysaa muxuu ahay baabuur hiday yar sidaan iska soo dabaasho meesha taga ay ku dhaweynayaan baddii waxa laga yaabaa in baabuurtii meesha ka gasho baddii ay ku soo muxuu ahay meeshii baddu ka tagtay inday baabuurtii dhigaan ay waxa weeyaan baabuurtii ka gasho baddiina ay hodhowto soo gaadho baabuurtii waxyaabaha ugu badan waxa weeyaan baabuurtoo kale naga yimaadeen aanu ka soo badbaadinayno kuwaas ka mid ah hawlgallo hadday noqoto dabab ah waxa weeyaan aad bay u fara badan yihiin hawlgallada laga galay muxuu ahaayay gobolka
kolley information kooban muxuu ahaa intaasuu iga eegi cabdiraxmaan cali aadan ee taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska adigana waan ku soo dhaweynaa tani bismillahi raxmaani raxiim ugu horeyn aad iyo aad baan u dhowahay idinkana waan soo dhaweynayaa mukhtaar iyo tv qaranka jamhuuriyadda somalilandba iyo barnaamijkan sida khaaska noo taabanaya dhammaantiin waxay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba taliya jimcaale faysal aw cabdi kulley niman dhalinyara oo saraakiila ayaa tihiin haddii aynu ku horeyno taariikhda iyo saa ku timaadeen idinku ciidanka inta badan waxa la dhahaa ciidanka dabdamisku uu ka duwan yahay ciidanka kale Soomaaliland oo inkastoo ciidanka ay ku jiraan rag badan oo aqoon leh haddana intooda badan waa dadkii ka soo baxay dugsiyada sare iyo jaamacadaha waddanka sidee baa ku timaadeen idinku bal xaruntan ma aqoon baa ku timaadeen ma waxa ku timaadeen oo kale sidii ciidankeena loo qori jiray oo kale qoriga soo qaado loo odhan jiray bal halkaas cabdiraxmaan waxaan jecelahay jimcaalow inaad faahfaahin dadka siino bismillaah mukhtaar waad mahadsantahay waa su'aal fiican kolley ciidanka dabdamisku kolley way ka duwan yihiin muxuu ahay qalabka ciidamada kale loo qaato ciidanka dabdamisku marka ay imika ciidanka ku sugan taliska gobolka saaxil oo kale guud ahaan ay ka wada siman yihiin waxa weeyaan waxa ay ku soo bilaabmay markii la aasaasayay Berbera in la yiraahdo la shaaciyo marka hore oo la yiraahdo ciidan waxa weeyaan dabdamis baa la qaadanaya in aqoonyahantii waxa weeyaan gobolku ay soo xareystaan siifiye iyo shahaadooyin la mariyo muxuu ahay imtixaamaad kala duwan 200 iyo dheeraad muxuu ahay in ka sareysa ayaa soo xareysatay waxa la mariyay waxa weeyaan sistemyo kala duwan oo imtixaamaad ah oo haday noqoto caafimaadkiisii haday noqoto dharar iyo miisaan haday noqoto waxa weeyaan aqoontiisa inta marka laga yimaado waxa weeyaan intii ugu sareysay imtixaanka la qaaday waxa weeyaan ciidan lagu kala saarayay ayaa intii ugu sareysay baa saa lagu qaatay 25 ugu sareeyay marka tiradii ugu sareysay marka laga qaatay ciidanka dabdamiska waa tababar baa la soo mariyay kala duwan oo ah kii ciidanimo iyo kii fire ka ahaa waxa weeyaan dabka habka loola dagaalamo iyo waxa weeyaan qaabka dabka waxa weeyaan loo badbaadada looga hortago umada loogu shaqeeyaba muddo aad u badan ayay waxa weeyaan oo ku dhawaad 8 bilood iyo 9 bilood ah ayay waxa weeyaan soo qaataan oo tababar ah oo waxa weeyaan ay ku soo qaataan Hargeysa iyo waxa weeyaan oo qaybta fire-ka oo channelka ciidanka dabdamisku uu bixiyo inta ka bacdi marka loo soo carbiyo waxa weeyaan iyagoo dhan walba ka dhisan dhankoodii aqooneed ay markii horeba wateen iyo dhankii fire-ka ee dabdamiska ay ka dhisan yihiin ayaa lagu soo celiyay xaruntoodii waxa weeyaan sidaasaan ayaa lagu qaataa qaabkaasaan ugu shaqeeyaan umadooda oo waxa weeyaan ay ugu dadaalaan cabdiraxmaan kulley taliya ku-xigeenka xaruntan ayaa tahay tababar adag ayaa soo mariyaa maxaa la idin maray horta waa su'aal muhiim ah haddaan taabto qodobka ugu horeyn ciidanka dabdamiska marka la soo xusho sidaa uu taliyaha sheegay ugu horeeyay wax loo diraa kooras tababar ciidan ala shakhsi dhammaan askari aan soo marin tababar ciidan oo dhammaystiran kuma jiro ciidanka dabdamiska guud ahaantood waxa uu soo raacaa fire training oo channelka ciidanku bixiyo waxa uu soo raacaa first aid-ka oo caafimaadkii ayaguna ka qayb ka ah gurmadka degdega ah waxa uu soo raacay electricity oo ah leerkii maadaama waxaan waqtiina dab yahay inta badan waxaan ku gurmadaana yihiin biyo iyo foam border marka si askariga uu kala garto gurigii dabaysnaa iyo gurigii kale waxa ayadana u dheer in la baro muxuu ahaa electricity oo ah leerkii habkii iskaga jari lahaa habkii dab leerkii laftirkiisa ayadana aqoona waxa soo raaca oo ayadana lagu bartaa ciidanka dabdamiska amba la siiya koorashada kamid ah ciidanka dabdamiska IT-ga maadaama oo ay yihiin dhammaantood ciidanka dabdamisku rag aqoon leh caqliyan iyo jirhaanba dhisan intaba marka qodobada aan boontiga aan tilmaamay ayaa la baraa ciidanka dabdamiska jimcaale kulley muddaa ka shaqeynayseen iminka magaalada Berbera aad hore u sheegtay
ma jiraan waxyaabo xusuus gaara idinku reebay ama masiibooyin haddii ay dab tahay iyo haddii ay tahay daadadba kaalin weyn ka qaateen oo ka dhacay gobolka intii iminka joogteen aad baad mahadsantahay kolley way badnaayeen howlgallada aan muxuu ahaay gobolka uga baxnay hadday noqoto guryo iyo hadday noqoto goobo ganacsiba aad bay u tiro badnaayeen laakiin waxyaabaha iminka muxuu ahaay la xusi karo kolley inta ugu badan dee howlgallo intaa guri un baad u baxaysaa iyo waxa weeyaan meherado laakiin waxyaabaha muxuu ahaay ugu saamaynta badan leh haddaan iyada ka soo qaato iminka suuqa oo kale meherad aad u weynayd oo suuqa fooq ahayd oo muxuu ahaay guri dabaqa ahaa oo gubtay iyo howlgalladii muxuu ahaay kuwa ugu waaweyn ku jiray ka mid ahaa oo dee dabaq waad qiyaasi kartaa aad muxuu ahaay ugu yaraan 3 dabaq ah marka uu dabqabsado muxuu ahaay xilli dambe saq dhexe tahay waqti dambe aan laga yaabo albaabadu ay yihiin noocii muxuu ahaay la xiri jiray qaabka xagga sare ka soo degi jiray qufulkiisuna xagga hoos ku lahaa oo aan wax alaaliyo wax muxuu ahaay dad markaa fura qufulkii ama aanay jirin laakiin la ogaaday in gurigaasi gubanayo fooqaas daaqada markay dabka ka soo baxeen waxa weeyaan naloo soo diray lambarka 990 la soo garaacay sidaana waxa weeyaan loogu gurmaday kulay dababkii ugu waaweynaa bay ka mid ahayd laakiin tiro male dababka inta waxa weeyaan loo baxayay ciidanku ay daminayeen jimcaale trainta laga yahlan kaga howlgashaan gaadiid nooceeyana waa ku howlgashaan oo trainta laga yilay laftigiisu kulay muxuu ahaay halkan iminka waxa yaala ciidan haddii muxuu ahaay xagga dhaga ciidanka aan ka horeeyo 35 xubnood ayaa waxa weeyaan ka howlgalay iminka halka qaar kalena waxa weeyaan tababar ugu jiraan muxuu ahaay gobolka marka baabuur hadday noqoto lagu shaqeeyo iminka kulli 3 gaari oo muxuu ahaay dab u baxa oo gurmad u baxa oo ayuun baa yaala oo muxuu ahaay ugu diyaara ciidanka si ay ummadda ay waxa weeyaan ay ugu shaqeeyaan marka baabuurtana 3 weeye ciidankuna iminka inta joogtay marka laga reebo inta tababarka ugu jirta oo waxa weeyaan 35 xubnood cabdiraxmaan cali sidee bay dadku idinla soo xidhiidhaan marka ay dhibaatooyinku dhacaan waxay nala soo xidhiidhaan dadku horta bulshada ku dhaqan gobolka saaxiil gaar ahaan magaalada madaxda berbera halkaan uga faa'iideysanay waraysiga qiimaha badan naga qaadaysan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba iyo had iyo goor mar walba aan ku wargelinaya anoo uga faa'iideysanay jaaniska inay ciidanka dibdemiska qaranka jamhuuriyadda somaliland goob kastuu ku sugan yahay gaar ahaanna gobolka saaxiil lamarkiisu yahay 990 eber shirkadda telesom iyo somtelba inta badan waxay isku khaldaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada berbera lambarka ah 39 iyo 290 lamarka ciidanka dibdemiska mar walba waa 290 goob kastuu jooga iyo gobol kastuu jooga taasoo heegan lagu yahay had iyo goor ciidan u qaasa oo operator la ayaa ka howlgala koolka dul fadhiya wax kala aan qaban ee telefoonkaas iyo dhawqa ka soo dhacay bulshada reer saaxiil u diyaar mar walba inta badan marka uu soo noqdo su'aasha nuxurkeeda bulshada reer saaxiil inta badan leekay soo qaraaca imika waxa dhacday macallin waa kan cudurkii COVID-19 soo laba kacleeyay guud ahaan dalkoo dhan gaar ahaan gobolkana si khaas ah isna aad ugu soo laba kacleeyay waxa dhici karta macallin ay dhacdo inta badan maalmihii u dambeeyay imika waxa focuska la saaray ciidanka dibdemiska maadaama ciidanka dibdemiska ay yihiin meesha qulaatay marka balaayo qof ay qabsato waxa xasuusanayo oo haday wax ku yimaadaan nasiibo inta badan nasiibooyinka dabiiciga ah anagu ayaan muxuu ahaayay ka shaqeynaa oo haday dab noqoto daad tuufaano dabaylo wixii dabiiciga marka bulshada reer saaxiil heerii waxay gaadheen inay yiraahdaan halkan buu yaalaa qof COVID-19 qabaaye kaalina soo gurmada marka inta badan 99% waxay kala soo xiriiraan bulshadu lambarka ciidanka dibdemiska oo ah 990 hal qof baa jiro lambarkii xasuusin markay wax ku dhacaan oo isagoo ordiyeen oo yimaada taana waxaan ku wacyigelinaa inuu lambarka ciidanka soo garaaco saas in la soo xidhaan bulshada tale jimcaale waxyaabaha ugu badan ee ka dhaca magaaladan aynu joognay ee xeebta maxaad ku tilmaami kartaa ama baad nooga sheegi kartaa haddii ay dab tahay oo kale goobahay ka kacaan haddii ay wax kale tahay oo sidaa badda oo kale inta ugu badan
way jirtaa muxuu ahaay marka waqtiyada dababku dhacaan muxuu ahaay waa loo gurmado baadhis la sameeyo way jirtaayo waxa weeyaan in sababta gubtay muxuu ahaay guriga ama meherada ama muxuu ahaay wax waliba dee meesha aan u baxno sabab baa la raadiyaa marka sababtaa waxa weeyaan waxaan la kaashanaa oo iyaguna dee qayb mar walba nagala ah ciidanka baadhista oo waxa weeyaan booliska oo iyaguna hawlaha dee shaqadooda ay tahay marka waan ka wada shaqaynaa annaga iyo ciidanka booliskaba sidii aan sababta u ogaan lahayn marka qaybta baadhistana waxa weeyaan ciidankaas ayaanu ka wada qayb qaadanaa waanu iskaashanaa annaga iyo waxa weeyaan ciidanka booliska marka sidii aanu meeshii maadaama annagu aanu dee ciidankii usoo gurmadaynahay qofka muxuu ahaay guriga leh ee ka mas-uulka ama meherada ama goobta ganacsiga ka mas-uulka aanu informationkii aanu annagu ka qaadayno oo dee aanu usoo gurmano wixii ugu horreeyay yimin aanu nahay si aanay wixii mar dambe usoo noqonin ama aanu helno waxay tahay sababta gubtay waanu ka wada shaqaynaa annaga iyo ciidanka booliska kulley shaqo adag ayaa haysaan inta badan ciidanka laftigooda ayaa iyagoo hawsha ku jira wax noqon kara maxaa qorshe idinka yaalla idinka ciidan ahaan dhibaatooyinka soo gaari kara kulley waxa weeyaan ciidanka daldamisku mar walba waxa weeyaan waa ciidanka shacabkooda waxa weeyaan u shaqaynaya u dadaalaya dhibaatooyinna waxa weeyaan way ku yimaadaan mararka qaar muxuu ahaay bulshada ayay dhaawacyo ka soo gaadhaanba bulshada ay u shaqaynayeen bay mararka qaar dhaawacyo ka soo gaadhaanba marka kulley aad bay u dhib badan tahay markaad qof aad u shaqaynayso oo muxuu ahaay aad isaga usoo gurmatay aad isagii kala kulanto dee waxa weeyaan dhibaato aad kala kulanto marka kulley sida caadiga marka qof wax soo gaadho muxuu ahaay ciidanka daldamiska ah oo ay wax ku noqday howlgal waxaanu leenahay wax caafimaad oo waxa weeyaan ciidanka daldamisku leeyahay baynu leenahay iyagaana waxa weeyaan aanu ka wada shaqaynaa sidii waxa weeyaan qofka aanu caafimaadkiisii iyo waxa weeyaan wixii wax soo gaadhay nooca yihiin badhaawaciisii muxuu ahaay loo dabiibi lahaa waxaa kaloo dee dhakhtarka weyn ee berbera oo kale dee gobolka walbana waa inta badan kolley waa sida dhakhtarka weyn ee berbera ayaa waxa weeyaan aanu qofkii inta badan aanu la xidhiidhnaayo geynaa qofka wax soo gaadhaan inta badan oo waxa weeyaan aanu wada shaqayn guud leenahay kolley berbera sidaynu ognahay iyadu waxay leedahay gaadiidkii badda iyo sidoo kale gaadiidkii beriga ciidanka dabdamiska maxaa uga qorshaysan ama uga meel yaalla haddii uu dab ku kaco maraakiibta badda maraya waa su-aal muhiima mukhtaar muxuu ahaa ciidanka dabdamisku imika gobolka waxaan joognay sanad buuraha maanta noo buuxda sanadka 2020 maarch 2020 baan nimid gobolka soo gaadhnay ilaa maalinkaan nimid iyo maalinka waxaa isku sanad buuraha marka horta qorshayaasha ciidanka dabdamisku waa ballaadhan yahay ee u yaalla dalka oo dhan gaar ahaan gobolka saaxiil waa wadnihii somalilan ama magaalada berbera oo wadda kadib baa ku taalla haamihii shidaalkaa ku yaalla ganacsatada somalilan oo dhan ba fadhigoodu yahay muxuu ahaaye gobolka saaxiil ama magaalada berbera qorshaha iyagu ciidanka dabdamis ahaan halkan waad arkaysaa goobtaan ka degannahay magaalada berbera waa goob istiraatiiji oo baddiina dhabarka ku hayso looga gurman karo muxuu ahaaye baddii iyo gaadiidkii badda magaaladiina bartankeeda ah xuduunta magaalada marka qorshaha ciidanka dabdamisku waxa weeyaan in goobtan la ballaadhiyo xagga dambe la sameeyo laashashkii dabdamiska ahaa ee muxuu gurmadka badda ka qayb qaadanayay annagoo weliba aanan taana weliba haatan diyaar aanay noo hayn oo qorshayaasha laakiin ay nugu jirto intaa haddana kama ital yaraysano wixii dekeda ka dhaca iyo baddaba mar walba heegan baa nagu taagannahay waxa dhacday inay doon gubato badda gudaheeda rabadaantii hore doontaas oo dabdamiskan muxuu ahaaye jooga dhiibu walla joogu xoogaa way ka howlgaleen halkan baanu ka baxnay gurmadka ciidanka dabdamiska gobolka alxamdulilah rabbil caalamiin gurmadka ilaahay waa nagu guuleeyey iyadoo dee aanan gaadiid badna hayn ayaan haddana ku guulaysanay inaan dabkaa xakamayno oan hurtiino annagoo adeegsanna khibradayada khaaska ah ee dabdamisnimo ee una baray janankayaga ciidanka dabdamiska ilaahay cimriga haw dheereeyo iyo caqligaba intaba muxuu ahaaye ciidanka dabdamiska mar walba had iyo goorba waxay u taagan yihiin badbaadada bulshaweynta reer somalilan guud ahaanba
naf iyo maal inay meel ay joogaan ba ku nabadgeliyaan saasaan insha Allah jimcaale maadaama hawsha intaa leeg aad gacanta ku haysaan ma jirtaa maadaama ku nooshihiin mid ka mid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan dalka wax taageera oo buuxda ma ka heshaan hay'adaha laamaha dawladda ay sida dekedda iyo dawladda hoose iyo haamaha kale aad baad mahadsantahay mukhtaar waa su'aal aad u muhiim ah kolley ciidanka dab-damiska warna waxay u shaqeeyaan dee waa waxa weeyaan gobolka saaxil iminka markaan gobolka ku sugannahay waxaan u shaqeynaa dee waa ummadda un haddii la yidhaahdo taageerada su-aashaad weydiisay aan u soo noqdo kolley laamaha dawladda markaad tidhi dawladda hoose ayaa waxa weyaan aad aan noola shaqeysa dawladda hoose gobolka saaxil oo ah dee mashiinka wareejinayaba waxa weyaan ciidanka dab-damiska aanu la-aantoodna aanu shaqeeyeen kolley marka waxay noqoto laamo kale oo waxyaabo meelo kale taageera ma ka heshaan oo ah muxuu ahaayey hadday noqoto ganacsatada gobolka hadday noqoto meelo kaloo ka mida muxuu ahaayey laamo kaloo ka mida gobolka may kama helo waxyaabo dee waxa weeyaan meesha wixii looga baahnaa ganacsatadoo kale iminka waxa weeyaan waxa loo shaqeynayaa waa waxa weeyaan waa ganacsigii baanu shaqeynaynaa ummaddii baanu shaqeynaynaa kolley iyagaana dee waxa weeyaan looga fadhiyaa baan leeyahay wixii hadday noqoto baabuur loogu hawlgelayo waxa weeyaan ummadda loogu shaqeynayo oo dee intan ka badan gobolku maanta intuu leeyahay waad aragtaa oo muxuu ahaayey kuma filla 3 gaari oo quro dab-damis oo waxa weeyaan halkan ku sugani kuma filla marka waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa fariin aan ugu dirayaa in cid kasta oo dee waxa weeyaan gobolka muxuu ahaayey joogta hadday laamo kale noqoto oo dawladeed iyo hadday noqoto ganacsataba dee waxaan u shaqeynaynaa kolley waa waxa weeyaan gobolkii weeyaan dee 3 gaarina kuma filla waxa weeyaan gobolka marka iyaga waxa weeyaan aan inta fariintaan u diranaa jilaakiga cabdiraxmaan cali aadan taliye ku-xigeenka ciidanka dab-damiska ee magaalada berbera adiga fariintooda maxay tahay aad halkan ka jeedinaysaa haddii ay tahay dhinaca xukuumadda iyo dhinaca bulshada hawshan adag u haysaan waxa weeyaan fariinta halkan aan ku dirayaa bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan gobolka saaxil waxa weeye horta ciidanka dab-damisku heegan wuxuu ugu jiraa waa bulshada gobolka halkan waxay u joogaan 4 saacadood bay shaqeeyaan waa ciidanka qulaatee heegan ku ah xaruntooda 4 saacadood laga heli karo waqti kasta ay noqotaba markuu yahay ciidanka dab-damiska ciidanka halka ku sugan ee fadhigiisu halka yahay ee uu fadhiya wixii bulshooyinka ka soo noqday falcelin ah ay la kulmaan masiibaha inay ka jawaabaan waxaan ka codsanayaa bulshada horta ugu horeyn inay markii hawlgal soo baxaan sida ugu fudud loo shaqeeyaan oo ah marka gaariga dab-damiska ama gaadiidka dab-damiska wadada maraya horta inay wadada u fududeeyaan si hore loogu gaaro dabka oo waxaan ku xisaabtamnaa haddaan nahay ciidanka dab-damiska golden hour waxa la yiraahdo oo ah waa saacada dahabiga waxaan ku xisaabtamnaa waqtiga dabka la soo sheego xilligan u baxno xilligan dabkan gaarno xilligan xakamayno xilligan dhamayno xilligan xirada ku soo noqono intaasoo waqti baan ku xisaabtamnaa haddaan nahay ciidanka marka si aan waqtiyada aan uga faa'iideyno oo waxaan u gurmanaa dadkeegina yihiin waxaan ka codsanaynaa horta ugu horeyn mar walba inay wadooyinka noo fududeeyaan markaad wax aragtaan qodobka labaad waxa weeyaan marka wax aragtaan muxuu ahaa bulshooyinka sheegaya dadka gobolka sugan markay wax arkaan masiibadaba ilaahay bay naguma keenay inay la markay ciidanka dab-damiska 290 sida ugu fudud loo soo xiraan iyagoon khalkhalin balaaday kalena aan istusin maadaama oo ciidan dhan oo heegan u ahay halkan ugu sugan yahay taasna waa qodobka labaad ee uga faa'iideysanaya labada qodob oo horta ugu muhiimsan oo xagga shaqada ah waxaan filayaa halkan waxa kale aan fariin uga dirayaa dhammaan ganacsatada laamaha dawladda ee ku sugan gobolka qaarkood aad u mahadsan yihiin oo si wanaagsan bay nooga shaqeeyeen nooga soo dhaweeyeen gobolka waqtigaan soo gaarnay halkan waxa ugu horeyn uga mahad celinayaa dawladda hoose magaalada berbera ee ugu horeyn maareedin iyo tiimkiisa halkan boqolkiiba haddaan idhaahdo xoogga ugu badan ee soo gala dab-damiska gobolka saaxil wuxuu ka yimaadaa dawladda hoose berbera ciidanka dhan intaa leega tiradooda lagu sheegay ayay meesha ku hayaan hadday noqoto
baahiyahooda asaasiga ah saddexdooda waqtigaas ku leeyahay maadaama ay yihiin ciidan 24 saacadood beegan ku ah goobta aan ka bixi karin oo waxaan sugaynaa tahay wax qayb ka ku maqan oo wax dagaal waqti uu ku qabsan doono iyo waqti uu dhamaan doono midna aan la garanayn yahay ciidanka booliiska gobolka taliyaha qaybta iyo tiimkiisa isagana aad ban oo ayagana ugu mahad celinaya oo labada waaxood sida fiican nolosha qayb gobolka marka ay laamaha dawladda gobolka Togol sheegayo sida fiicanna ula howlgalay ciidanka dabdamiska goob kasta ku sugan yihiin iyo howlgal kasta ku taagan mar walba garabkooda taagan intaas ay kaga baxay Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay sida uu kulay nagu faahfaahiyay howlaha shaqo iyo ciddii gacan ka geysatay waliba ciidanka la shaqeysa Jimcaale Faysal oo Cabdi taliyaha ciidanka dabdamiska ee magaalada Berbera ma jiraan afgarad gaar ah oo ciidanka ka dhaxeeya waqtiyada howlgalka la galayo ama haddii masiibo la soo sheego ay ciidanku gurmanayaan oo ay isku fahmi karaan kulay marka ugu horeysa muxuu ahaayay wuxuu gurmadku waxa laga soo garaacaa qofka waxa weeyaan soo sheegaya qayladhaanta dabka soo sheegaya wuxuu soo garaacaa lambarka ciidanka dabdamiska oo ah 990 inamada waxa weeyaan controlka ku diyaarsanaya haya telefoonka ag fadhiya heeganka u ahi waxay markiiba waxa weeyaan ka jawaab celiyaan lambarka soo garaacay waxa weeyaan lambarka ciidanka dabdamiska 990 marka ay qoraan ay meesha dabka muxuu ahaay laga soo sheegayo iyo halku yahay ay waxa weeyaan ay ka qoraan qofkaas oo dhameystir warbixin buuxda oo sax ah laga qaado si aanay waxa weeyaan ugu lagoyn meeshii warbixin sax ah ka qaado wuxuu askarigaasi uu sameeyaa alarm buu taabtaa oo waxa weeyaan hoon ah oo ku xiran waxa weeyaan xerada ku xiran ayuu taabtaa markuu qayliyo hoonkaasi askari waliba wuxuu weeyaan gaarigiisa ayuu toos u fuulaa oo de waxa weeyaan uu isagu u diyaarba isagu wuxuu sugayaa in la soo sheego qayladaan marka hoonka iyo alarmka la shiday micnaheedu waxa weeyaan waa qayladaan baa la soo sheegaya markaasuu warbixinta ninka waxa askariga loo soo sheegay la fadhiya lambarka waxa weeyaan laga soo sheegay dabka ayaa warbixinta yiraahdo halka iyo halkaas dabkaasi ka dhacay sidaasaana waxa weeyaan loogu gurmadaa looga baxaa xirada oo ay loogu gurmadaa halka hawlgalka laga soo sheegay kulli waxaan muxuu ahaayay inta raacinaya marka Cabdiraxmaanna waxa weeyaan uu isna ka dhawaajiyo sheegay marka dabka lagu socdo kale waxa jirta darawalada muxuu ahaayay baabuurta kale in ay ka dhigaadeegaan emergency adoo ku socda baabuurtu wadadu ay jam tahay in waxa weeyaan aanu wadadii banaynin oo uu ku dhagaadaygo inuu waxa weeyaan haadkiisa sidii baabuurtii caadiga ahayd inuu gaari iska caadiyo daba socdaan waxba waxa weeyaan emergency ku jirin oo kale inuu saga socdo oo gaariga kale waxa weeyaan dabka ku socda uu waayo meel uu ka dhaafo gaariga kale wadayaasha baabuurta waxa weeyaan gobolka ku sugan waxaan waxa weeyaan marka koowaad iyo mar labaad baan ku baraarujinaynaa in haddii ay arkaan gaariga ciidanka dabdamiska u socda waxa weeyaan hoonkiisu dhacayo u socdana hawlgal in ay markiiba baarkin galaan laba muxuu ahaayay laba gaari ayaan waxa weeyaan haad lahayn markeeda horeba oo marka uu waxa weeyaan uu ku socdo macal qaldan waxa weeyaan inaad marto ay maanta emergency aad ku socoto ay waxa weeyaan ay tahay oo baabuurtu baarkin ka wada gashaa macal wada qaldan dad ku soo beeganto ay tahay sida caadiga in aad waxa weeyaan u banaysaa waa gaariga ambulance iyo gaariga dabdamiska marka kulli imka la soo fahan oo waxa weeyaan gobolka inta badan dadku may muxuu ahaay hore uma fahansanay laakiin imka inta badan wala soo qabsatay inta aan fahansanayna waxaan ku baraarujinayaa in ay markay arkaan ciidanka dabdamiska oo ku socda hawlgal ay waxa weeyaan baarkin ay uga baxaan si ay u dhaafaan gaarigaas oo emergency waxa laga yaabaa hawlgalka ugu socdo inay nafi ku jirtaba oo adigaagaasi aad sababto inay naftaasi go'do waayo markaad is hortaagto waxa weeyaan gaarigii ku socday hawlgalka aad is hortaagtay xanibto aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka saaxil oo barnaamijkan marti noogu ahaa barnaamijka waxaa la socodsiinaya anigu ah Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud tan iyo kulantada waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo